sidaad la socoteen waxayna ku soo kordhay arrin soo kordhay shalayto in shirkadaha isgaarsiintu ay qiimihii adeega isgaarsiinta ay sameynayeen ay wax ka bedeleen arrintaasoo keentay cabasho ka timid bulshada isla markaana ay xalayto magaalada mudaharaado ka dhaceen sidoo kalena laga cabsi qabo in mudaharaado kala dhacaan laguna baaqay saaka oo aan halkan isugu nimid waxaan kulan dheer qaadanay shirkadaha isgaarsiinta dalka gaar ahaan shirkadda Telesom, Salteco iyo Somtel muddo dheer aan ku jirnay shir 3 saacadood iyo dheeraad qaatay waxaanu isla meel dhignay wax badanna ka wada hadalnay arrimihii soo kordhay iyo qiimaashii ay ku kordhiyeen ama adeegii isgaarsiinta ay kordhiyeen waxaana ka soo baxay kulankayagaas qodobada halkan ku soo socda iyadoo la tixgelinayo cabashada bulshada ee ka soo noqotay isbeddelka ku yimid adeega isgaarsiinta waxaa kulan degdeg ah isugu yimid mas'uuliyiinta shirkadaha isgaarsiinta Telesom, Somtel iyo Salteco iyo xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland dood dheer iyo falanqeyn kadib waxaa la isla fahmay culayska uu leeyahay arrinkan iyo muhiimadda ay leedahay in laga jawaabo cabashada bulshada intaa ka bacdi waxaa la isla qaatay oo qodobada shirkan ka soo baxay ay yihiin in shirkadaha isgaarsiinta waxaa la faray in ay dib eegis ku sameeyaan isbeddelka ay ku sameeyeen adeega isgaarsiinta in guddi farsamo oo ka kala socda shirkadaha isgaarsiinta xukuumadda la saaro si ay u soo darsaan sababta keentay isbeddelka ku yimid adeega isgaarsiinta ee shirkaduhu bixiyaan dhammaan shacabka Jamhuuriyadda Somaliland ilaaliyaan amniga guud ahaan dalka ayna ka fogaadaan wax kasta oo wax u dhimi kara amniga dalka ugu dambeyn xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland waxay ka digaysaa cid kasta oo wada kicin abaabul wax u dhimaya nabadgelyada guud ee dalka aadna waad u mahadsantihiin kulamada waxaan kaloo ku darayaa kulamadu way noo sii socon doonaan galabtan waan isu iman doonaa haddii la hadmo barina waan ballansannahay bulshada waxaan u rajaynaynaa haddii la hadmo aan u sheegaynaa in arrinkaasi uu ku dhammaan doono khayr